qaldaneen xabsa kuwin markii ay ka sheegaysay live-ka ay ku jirtay dhaysay guur xalaala waxaan kaliya soo maray kii Rashka Boy ninkayga hore ex guurkiisa baan guur xalaala soo maray hadda waayahay maalin hore markaan reaction ka bixinaynay ee hambalyada naga dhamaatay oo xaaji dhayseen oo isku dhageyseen ka maxaa loo tilmaamaa mid kale de guur xalaala mid baa jiro guur hadduu afka soo maro waa hal qura kaasoo ah mid ku salaysan meher iyo dhaqan iyo caado iyo diin iyo asluub kaas le waayaba marka maana afkaaga isku taabtiisa xabsa kuwin in afkaaga ay soo marto ama xanaaqsano fiiri gabadhan gabar yar oo masaakiin way yartahay xabsa kuwin aad u yartaa gabar yar waxa laga yaabaa isku dhac inuu yimid xanaaq inuu jiro ayadoo taas fiirinaysa xanaaqa markaas iyada hayo oo kale inuu ka tambadiyo ay ku dhawaaqdo wax aanan jirin xitaa way keeni kartaa ay tiraado guurkaas totally ba ay inkarto macna inuu xanaaq hadda waxa laga yaabaa ereyga afkeeda ka soo baxay iyada umayaan fiirsan in iyada effect ama dhibaato u keeni karo waayo waxa tiri guur aniga waxaan kaliya soo maray guur xalaal ah bay tiri fiiri guur xalaal waxaan kaliya soo maray mid qura kii Rashka Boy haddaba waayahay iyada marka ereyga afkeeda markuu ka soo baxay ma kula tahay inay ka fikirtay in durbaba dhiiqa ee luga isu gelisay iyada afkeeda isugu gelisay maxaa yeelay guurka kale aad lahaydeen waa xaajiyadeeda oo aad soo fariisateen oo aad lahaydeen labadiinaba fiidiyoo qurux badan baa idin soo gudbin doonaa as a husband and wife aaw guurkaas muxuu ahay haddaba afkaaga waa lagu raacaa haddii lagu dhaho marka oo dadkan ayaga oo aadan hadlinba YouTube-ka waxay maqlaan la soo fariisanayay markaan oo kale oo adiga waxay ku hadli lahaayeen aad siisay oo aad adiga dhiiqo luga isku gelisay waxa u maleynaa waxay rabaan ay dhihi karaan sidii wiilka hadda dhageysaneen oo kale hal guura jira loo yiri walaalay guur kale noo sheegay maxaa waay boyfriend girlfriend miya oo kale horta waa ka xumahay waxa laga yaabaa waa gaba yar xanaaqan u geeyo waxa laga yaabaa fiiri ana aqligayga markaan la kaashaday in uu xanaaq u geeyay oo isku dhac u yimid ay careysan tahay dumarkana sidooda awoodooda waa afka waxa laga yaabaa marka carar iyo xanaaq ay qabta awgi inay u geysay guurka xitaa inay maaragtay meesha kala saarto ee tiraado aan hal guur soo maray ee boodaba laakiin ma fiirinayso dhinaca kale aad iyo dhiiqo inay luga isku gelinayso marka saa idin sheegay waxa xabsa kuwin waa gabar yar hal mid ayaan kala talinayaa xabsa kuwin marka taladan siinayo waxa taa waa idin sheegay youtuberada labadana waa dhaarag iyo dumarba iyadana hal mid bas aan leeyahay midda dhahay waxay tahay xabsa kuwin walaal waxa kula hadlay waa walaalkaas CK way wanaagsan tahay darajada ama maqaamka adiga aad leedahay oo marka aad taagan tahay inaad ogaatid macnaha waxaan ka wadaa maqaamka adiga ama darajada markaas aad joogtid horta inaad og tahay way wanaagsan tahay midaas waxaan ku leeyahay adigu waxa tahay gabar caana dad fara badan baa ku follow gareeya waxa kamid tahay Soomaalida dhalinyarada youtuberada kuwada ugu caansan baa kamid tahay Instagram-ka story-ga dad baa la socda TikTok-ga dad baa la socda YouTube-ka dad baa ku xiran soo ma ogid marka adiga wax kasta oo ka soo baxa in ay dad u yihiin shaqo macnaha wixii afkaaga ka soo baxa ama story-gaaga aad soo dhigto haddii xan yar banaanka laga soo maqlo oo ah tusaale adiga wiilkan cusub ay isguursateen oo social media soo fariisateen oo kale ina isku dhacdeen oo kale kaliya hadii la soo maqlo qof kasta oo raba in YouTube-kiisa uu u kaco wuxuu sameynayaa story-gaaga maalmahaas inuu indheeyo dabagal xitaa erayada aad soo qoraysa hadday qalafsan yihiin xitaa caddeymay ka raadinayaan iyo inay YouTube-ka la soo fariistaan ka waran marka adigoo live ku jiro iska daa qoraal aad meel soo dhigtay haddii noocaan oo kale aad u hadasho wixii la doonaba ka keenaan ama xanaaq ama reality wixii ku ahaataba Soomaha marka mid adiga aad isku dhiibtay in ay ku karbaashaan anigu waxaan ku dhihi lahaa horta maqaamka aad joogtid ugu waxa tahay gabar caana dad fara badan ay follow gareeyaan markii aad tahay qof caana waxa loo baahan yahay qofka kale ee normalka ah inta uu isduubduubo ka badan inaad is ururisid macnaha markii aad caan tahay qofka normalka lama mitid qofka normalka ah hadii maana uu taabto ama ashidanta u dhax galo
adiga waad ka dhib badan tahay oo qof caan ah tahay waxa loo baahan yahay marka inta dadka aan caanka ahayn is ururiyaan ka badan inay is ururisid taas aniga talo ku siinayaa youtuberadana taladaas iyo waxa ay tahay wareed hadaa youtuber tahay oo aad xanxan banaanka ka maqashid youtube-ka kula soo ordin ee waxaad